haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja. waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da. dhegaystayaal, ummad walba heerka uu markaas afkeedu joogo waxaa laga garan karaa warbaahinteeda, qoraaladeeda suugaanta, suuqa buugaagteeda iyo xafiisyadeeda dhambaalada ka soo baxa ee la isaga tabiyo. intaasiba waxay muujiyaan daryeelka ama daryeelli'ida uu afhebel dadkiisa ku qabo. sideedana waayadan aynu joogno waxa ugu daran oo afku ka naaxaa ama uu ka weydoobaa warbaahinta qaybaheeda karakaanka ah, maqal, muuqaal iyo qoraal dirkaba. waa 3 warfaafineed oo dadweynuhu aad ugu xiran yahay, iyaga ayaana tayada afka kor u qaada ama dhulka la gala. sidaa daraaddeed waxaa kooxaha warbaahinta xil gaarihii ka saaran yahay inay u fiirsadaan erayada iyo weeraha ay wax ku tabinayaan, sidaan mar walba idhaahdana kuwa ay adeegsadaani ay ku ekaadaan qaarka ay macnahooda garanayaan oo keliya. haddii aysan sidaas yeelin waxaa ku marin habaabi kara dhallinyarada iyaga ku dayanaysa ee meesha sare ka eegaysa. waataynu ku maahmaahnay awrka dambe awrka hore saanqaadkiisuu leeyahay. taana daliil cad ayaa loo hayaayo gafaf culculus oo ku saabsan naxwaha afka ama macnaha erayadiisa qaar markii ugu horraysana laga maqlay xubno magac sare ku leh warbaahinta soomaalida ayaa maanta loo adeegsadaa sidii iyagoo sax ah. saxna ma ahee, waa qalad. si kastaba ha ahaatee, baraan maanta idiin soo gudbiyo tusaalayaal ku saabsan erayo iyo weerar si qaldan dhallinyarada afka loogu tiray oo idaacadaha iyo telefishinada qaarkood aan ka maqlay, aanna ka cabsi qabo haddii aan la isku baraarujin inay sidaas ku hirgalaan. tusaalaha koowaad, weriye ka faalloonaya dhibaatada dhaqaale ee dhowaanahan dalka Lubnaan la soo gudboonaatay ayaa warkiisii ku soo gebagabeeyey deeq-bixiyayaasha waxaa laga codsanayaa inay gacan badan ka geystaan sidii loo gargaari lahaa carruurta dalkaas ku gaajoonaysa. meesha uu ka yidhi gacan badan waxay ahayd gacan weyn inuu yidhaahdo. tusaalaha labaad, si looga ilaaliyo ama looga yareeyo faafitaanka cudurka COVID-19 ayaa beri dhexdaasa dugsiyada Australia waxaa lagu soo rogay in fayraska cudurkaas ku wacan macallimiinta laga baaro. dabadeedna wartabiyihii arrintaa inoo sheegayay ayaa yidhi dalka Australia 300 oo macallimiin barayaal ah ayaa baaris loo dareeriyey. weedhan 2 qalad ayaa ku jira. midi waa macallimiin barayaal ah oo waxay ahayd in macallimiin ama barayaal uu midkood weriyuhu ku ekaado, marba hadday labadu isku macno yihiin. 2 magac oo la isdaba dhigo waxna aysan u dhexayn macno cusub kuma kordhiyaan kii uu mid waliba markiisii hore xambaarsanaa. qaladka labaad isna waa oraahda aan loo dareeriyey, maxaa yeelay ereyga dareerin wuxuu ku gaar yahay xoolaha, iyagaa la dareeriyaaye dadka lama dareeriyo. tusaalaha saddexaad, isagoo ka warramaya sida dalka Hindiya uu COVID-19 ugu faafay ayaa la maqlay weriye ku warramaya 3 toddobaad gudahood waxaa dalkaa ku geeriyooday ilaa 200,000 oo qof oo dad ah. hadduuba yidhi 200,000 oo qof miyuu u baahnaa inuu raaciyo oo dad ah? waa maya jawaabtu, maxaa yeelay qof waa erey dadka u gaara, wax kale oo la wadaagaana aysan jirin. tusaalaha afraad, kaasaan soo sheegayna waxaa la too ah weriyihii kale ee yidhi qarax magaalo heble ka dhacay waxaa ku dhimatay gabar dumar ah. ereyga gabar in dumar lagu macneeyaa waxba kordhin mayso, maxaa yeelay sida iska cad
in gabadhi dumar tahay waa la ogyahay, cid in loo sheega u baahanina ma jirto. waxay muujinaysaa uun fudaydsiga adeegsiga hagaagsan ee af soomaaliga. tusaalaha shanaad, hay-ad warfaafineed oo magac dheer leh ayaa tabinaysay war ku saabsan nin ku nool dalka Awstriya oo siday ku soo gashay iyo halkay ka soo gashay midna lama sheegine ay musqushiisa abeesa ka qaniintay. markaas baa wariyihii wuxuu yidhi, nin degan dalka Awstriya ayaa musqul waxaa ka qaniinay mas nooca abeesada ah. waa weer qalad ah, maxaa yeelay abeesadu mas ma aha, maskuna abeesa ma aha. labadu way kala madax bannaan yihiin, mid walibana gaar ahaantiisa ayuu uga tirsan yahay noolayaasha jaadka sunta leh ee halaqa loo yaqaan. sidaas awgeed waxaa wariyaha ku habbooneyd inuu yidhaahdo, nin dalka Awstriya degan ayaa musqul ka qaniinay. intaas oo qura ayaana ku fillayd. tusaalaha lixaad, beri baa waddada soddonka ee xamar waxaa gooyey roobabkii guga oo nurkaas magaalada aad uga da'ay. markaas baa baabuur weyni halkaa ku gadoomay. dabadeedna wariyihii dhacdadaa ka warramayay ayaa wuxuu yidhi, gaari ayaa ku gadoomay waddada soddonka kadib markay biyaha roobku waddada gooyeen. wariyuhu uma uu baahnayn inuu yidhaahdo biyaha roobka, maxaa yeelay waxaa jira eray markay dhulka soo gaaraan ay biyahaasi leeyihiin. waa ereyga xareed. sidaa darteed waxaa ficnaan lahayd inuu yidhaahdo, gaari ayaa ku gadoomay waddada soddonka kadib markay xareedi waddadaas goysay. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo joog. waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.